waxaan horay u arki jirnay maalqabeeno ku tartamaya ganacsiga noocyadiisa kala duwan, balse markan arrinkan wuu ka duwan yahay kii hore. Kani waa tartan dalxiiseed oo lagu tagayo hawada sare ama isbeyska. marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta qiimaha badan kusoo dhawaada muuqaalka loo qiimo badan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe inoo saar oo nagu soo biir videogana like saar si uu u gaaro asxaab badan. kani waa Jeff Bezos, shaqsigii la caleema saaray in uu sanadan yahay shaqsiga ugu taajirsan adduunka, waana milkiilaha shirkadda caanka ah ee Amazon. Jeff Bezos ayaa u duulay hawada sare isagoo raacay dayax-gacmeedkii ugu horeeyay oo ay raacaan dad rakaab ah, kaas oo loogu magac daray New Shepard. iyo Elefanka oo ahayd shaqsi weligeed ku fikiri jirtay yaraanteedii xilligii ay ardayda ahayd in ay tagto mar uun hawada sare. dayax-gacmeedkan ayaa ahaa mid aad u horumarsan, waxaana soo saartay shirkadda uu leeyahay milkiilahan taajirka ah Jeff Bezos oo lagu magacaabo Blue Origin. xilli waraysi ay ka qaaday warbaahinta CBS News, milkiilaha caanka ah ee Jeff Bezos ayaa yidhi, aad baan ugu faraxsanahay. dadka waxa ay weydiinayaan in aan baqayo iyo in kale. waxaan doonayaa in wax badan aan ka soo ogaado safarkan. waxaan doonayaa in aan soo barto wax aad ka baran doontaan safarkan. Elefanka waxay dhankeeda iyadana tiri, waa tallaabo aan qaadayno. in muddo ah ayaan sugaynay in aan dayaxa tago. waa arrin aan ku haminayay. in la tagaa hawada sare ama dalxiis lagu tagaa meerayaasha kala duwan ee adduunka ma ahan wax sahlan, balse taajiriinta adduunka iyo shirkadaha caanka ah ayaa ku fikiraya inay arrinkan dhaqangeliyaan oo ay lacag ka sameeyaan. dalxiiskan lagu tagayo hawada sare iyo meerayaasha adduunka siduu ku leeyahay daawade. nagu reeb qaybta hoose commentiga fikirkaaga, videogana like saar, asxaabtaadana u sheer gare. mahadsanid.